هرجل وناكسن دمانتين با أصحاب الداديسة برنامج كهرجل وناكسن وعلى بكبحة تلفزيون كعالمي RTN ما أنت برنامج كهرجل كدنك حريق وحوتي دب وحنقصه قادم دونا بقشة وكل مد فنان كدا ديار إيل عبد الله نون إيليرة أو كم دا فنانين الصومالية مدبو كنا لا مجال عاصمة نيروبي وأنا فنان كأجهري بقشة وكل ماذا حريقها قحوتي دب وحادن كي لوضع نعيكل تاعن إيليرة iyo Saciid Kaajal oo ayadana kamid ah fanaaniinta Bed Group xariyaha qaxootiga dhab marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa Iidiyare maadaama Iid aad kamid tahay fanaaniintii Nairobi aad soo boqotay xariyaha qaxootiga dhab bal dareenkaada ka waran xariyaha qaxootiga dhab kala kulantay wallahi dareen inta in ka soo gudaan galin baash feesada birno dhiman tahay quruxda birno dhiman tahay laakiin wallahi waxaan isleeyahay ama inta kana waa tahay xariyaha dadka heesaha aad bay u taageeraan bal markii aad aragtay nolosha xariyaha ankastoo wali aan si fiican u dhaxgalin balse kor aad kala socotid maxaa kuuga baxay wallahi kulli waxay baxay aad waxaan soo ugu garnaa laakiin dadkayna yaqaanin inay taageeraan ayaga ku halkaan quruxdan u joogan ayagana waxaan jeclaan in respect goon la siiyo waxaa jira fanaaniin badan oo ku nool magaalada Nairobi oo sidan oo kale aan u maanin xariyaha qaxootiga dhab oo Soomaali badan oo gaaraysa ilaa 250,000 oo qof Soomaali ah ku nool fanaaniintaasi Nairobi ku nool maxaad ugu baaqaysaa kuwa Nairobi kaliya kuwa daafaca caalamka ku nool waxaan ilaha dadkiina lacag u soo doonane waqtiga la qaato alla xiro bluetooth alla iska xiro yaan la furin hal imaado qaxootiga dadkiina waqti si sababtoo ah waqtigeedina qaadan lahayn qaarkood sharci ma haystaan ma iman karaan Nairobi qaarkood ma iman karaan shaqo iyo waqtiyo iyo duruufo jir awgeed isu iman karin marka meeshooda ugu imaado waqti la qaato farxadda la qaata dhuuntan hal xiro wata ile abad ma hasanta aan ku soo laaban doonaa haatan waxaan ku soo dhaweynayaa Saciid Kaajal oo ayada kamid ah fanaaniinta Bed Group ee xariyaha qaxootiga dhab iyo faafi Saciid ku soo dhaw barnaamijka hargal wanaagsan ee alaaba ka baxa telefishinka RTN أيوة ما ولالكي وما سنتهاي حنا كسر دوينينا حلفدي ما بجكولا ما دام إنه لجوا فنان كان قارئ يدليره وحن ديه لها إذا كان سيدو كلا وعند السلام يا وحي بهذه صحفيين تا يكوي نجم قني يكون لجوا جبا الشعب كان يكون ملك استدوينها وانتهاي إلو حريها قحوتي الأب معلومة قدام بحد مدة إن أي أد كل شيء أدعى بل كل كان أدي لما قبستي ما نرجعش هاي إن أدلسي جوك تحريها إن مدة ما دام كل زائد مجرم من كل شيء عن يوروب كمان موت وبرو في الداية قحوتي كسي قحوتي لنا كين يكونون كين كل واحد يروح نتيجة كل واحد يبين له شيء وحندك خارخد وجودك سيو حارك رجع يدور بدنه الصومالي أما ما يلا لقوا مكتكان ده كل بدنا مشان زائد كل شيء وكيا كيماته نيروبا كيماته أبد ما سنتين سعيد كاجل يو إيل عبد الله نور إيل وحتى تغني إنه جوجي مقالة نيروبي أنت ما محوكيك بقى برنامج كا إجلين شو يو ولي برنامج ذا كله كبحة تلفزيون كعالمي RTN برنامج كان إيلو كيما وحلو مع برنامج كا بامبا تشكولا ومدة 6 سنة يوسع على وحوب بالله لو يكون يوشان يتبنكي برنامج كان أي واحد قحوتيجا لو قد دقيق إن تلفون لو وصل لعك سفاء وحياة وحكست أوجتان مركب برنامج كان أي واحد نقضي مد أدي سولويان وأنا هذا الحين أقول بدن إيمان تتاجن حريها قحوتيجا لداب وحد بدهم كعلنا يا خيوها كلا برنامج كا إيو